sida uu dhigay dastuurka deegaanka kadib markii uu ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee deegaanka Soomaalida mudane Maxamuud Abiy bin xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ku guuleystay 273 kursi oo ka kooban yahay baarlamaanka deegaanka ayaa waxa hogaaminta kalfadhiga la wareegay gudoomiyaha maxkamadda guud mudane Ugaas Cabdullaahi oo xildhibaanada ka codsaday inay iska soo doortaan guddi doorashada afayeenka baarlamaanka hagaag guddigan ayaa sida uu dhigay dastuurka deegaanka qodobkiisa kontonaad farqadiisa saddexaad ka dalbaday in xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya oo ku guuleystay doorashadii in madaxa xarunta dhexe ka codsaday inuu soo dhaweeyo xubinka afayeenka baarlamaanka uu noqonaya sida darteed ayuu mudane Cabdi Maxamed uu soo dhigay in xisbigu uu xushay 5 sano ee soo socota uu afayeenka baarlamaanka noqdo mudane Maxamed Rashiid Isaaq intaas kadib waxaa codka loo qaaday mudane Maxamed Rashiid Isaaq oo xildhibaanadu cod waxay ku ansixiyeen inuu noqdo afayeenka baarlamaanka ee 5 sano ee soo socota cod waxa markaa waxaa lagu doortay Maxamed Rashiid Isaaq inuu noqdo afayeenka 5 sano ee soo socota inoo hogaaminaya mudane Maxamed Rashiid Isaaq oo mar kale loo doortay afayeenka baarlamaanka ayaa xilkaasna loo dhaariyay intaas kadib waxa hogaaminta kalfadhiga koowaad la wareegay afayeenka cusub ee baarlamaanka mudane Maxamed Rashiid Isaaq oo sida uu dhigay dastuurka deegaanka qodobkiisa 6aad farqadiisa koowaad in xisbiga ku guuleystay doorashada uu soo dhigto shakhsiga uu hogaaminaya xukuumadda ee noqonaya madaxweynaha deegaanka sida darteedna waxa uu xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya uu soo dhigay in mudane Cabdi Maxamuud Cumar uu noqdo madaxweynaha 5 sano ee soo socota hogaamin doona deegaanka Soomaalida xildhibaanada ayaa cod u qaaday in mudane Cabdi Maxamuud Cumar uu noqdo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya 5 sano ee soo socota oo ay waliba cod buuxana ugu ansixiyeen qodobka 6aad oo dastuurkeena oo qanooc ka hayo wala soo qiimeynteena taageersan madaxweyne Cabdi Maxamuud inuu noqdo madaxweyne 5 sano dajiya intii diidan intii ka mustay waad ma santiin boqolka codbo gudoomiyaha maxkamadda guud ayaa halkaas ku dhaariyay madaxweynaha la doortay ee 5 sano ee soo socota madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo mar kale loo doortay jagada madaxweynenimo ee deegaanka sida uu dhigay dastuurka deegaanka madaxweynaha la doortay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa u soo bandhigay xildhibaanada xubnaha golaha xukuumadda cusub ee 5 sano ee soo socota wuxuuna ka codsaday in xildhibaanadu ay xukuumadda ansixiyaan xubnaha xukuumadda cusub ee madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo soo jeediyay xildhibaanada ayaa waxay kala yihiin Marwa Sucaad Axmed Faarax madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka xafiiska beeraha mudane Mawlid Hayar Xasan madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka xafiiska waxbarashada mudane Cabdixakiin Cigaal Cumar madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha mudane Axmed Maxamed Cabdi wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha Marwa Fartuun Cabdi Mahdi wasiirka xafiiska khayraadka biyaha mudane Cabdi Fataax Saciid wasiir ku-xigeenka xafiiska